dhagaystayaal qof waliba markuu dhasho wuxuu ku dhashaa tilmaamo abuurkiisa guud ahaaneed ku dhafan. waa tilmaamo qofka la kora oo ku tallaalan ayna u badan tahay inta uu nool yahay inay la socdaan. dhismaha jirkiisa ayay qaarkood ku saabsan yihiin, qaar kalena awoodda garaadkiisa iyo maankiisa ayay la xiriiraan. macnaheedu wuxuu yahay dadka qofba sibuu eebba u abuuraa. ooga ahaan waa lagu kala duwan yahay oo laba si walba isugu eegi ma jiraan. malahaygana lama uumin qaar xagga dhimirka iyo waxgarashada si buuxda uga siman. waa run oo dadka qaar baa loo buriyaa looguna deeqaa in doora oo ka mid ah tilmaamaha wanaagsan ee ay bulshadu jeceshahay. qaarna isla tilmaamahaas inta lagu yareeyo ayaan falkooda wanaaga laga filan, taladoodana aan la tixgelin. in kaleba iska daayay laba walaalo ah oo isku hooyo iyo isku aabbo ah ayaa si walba u kala duwanaan kara. mid baa dheer, midna waa gaaban yahay. mid baa dheereeya oo dhasha gorayada caga ugu been sheega, midna diin gaboobay uu ka gaabiyaa. mid baa aftahana oo markuu afka kala qaado lala ashqaraaraa, midna wuxuu noqdaa afgarooc aan wixii ku soo dhaca gudbin karin. haddii uu isku dayana waxa uu sheegayo aan la garan karin. mid baa dabeecad qabow oo dulqaad miirana, midna cara iyo dhiidhi ayaa ka soo horeeya oo qofkii ay laba eray isdhaabsadaanba waa lagu kala hagoogtaa. mid baa geesi ah oo aan boqol dhaba uga leexan, midna wuxuu noqdaa geeriyaale aan shimbiraha hubin haddii ay shababaxleeyaan. mid baa deeqsi ah oo hadduu wax kala waayo awrka gurgur martidiisa u looga, midna waa mudal qaduuca oo aan xunshada uga kicin. xagga waxbarashada mid baa warka macallinka iyo casharkiisa durbadiiba la salonsiiyaa oo si wacan u waaleeya, midna xisaab sare iska daaye laba ku dar ayaa lagu kala waaya. sidaas oo kalena awoodda maansa curintu waxay ka mid tahay awoodaha uu aadanaha qaarkiis ku dhasho, qaar kalena aan wax laga siin. waa tilmaan dadka qaar lagu gallado, qaarna laga qadiyo. macnaheedu wuxuu yahay gabyaannimadu waa hibo abuurka qofka ku milan. waa awood uurka hooyo lagala soo baxo. waa tilmaan ruuxa loogu deeqaa uu iska dareemo goor hore iyo isaga oo aan weli qaangaarin. in badan baanu la kulannay gabyaa caan ah oo ku sheekaynaya tixihiisii ugu horreeyey kolkii uu isku duway inaanu 10 gu dhammaysan. allah u naxariistee gabyaagii weynaa ee aadan carab la oran jiray wuxuu igu warramay inuu 9 jir ahaa markuu mariyey tixuu ugu jawaabayey nin isaga aabbihii gabay ku maagay. sidaas oo kale 1970 qarnigii 20aad ee dhowaantayna sagootiyey waxaa isaguna ii sheekeeyey maansayahanka caanka ah cabdulaahi macalin axmed oo dhoodaan lagu naanayso. wuxuu ii sheegay inaan wax qumani u dhaxaynin markii uu hadal bartay iyo markii uu gabayga bilaabay. taasina waxay markhaati dheeraada u tahay ra'yiga ah maansayahanku inuu ifka u soo baxo isaga oo awoodda curinta maansaduna ay ku tallaalan tahay. sidaasoo ay tahay haddana waa la joogaba dadku kama daalaan inay isweydiiyaan su-aasha ah gabayga ma la baran karaa, oo sida kasmooyinka kale uu aadanuhu u kala kororsado awoodda maansa curintana ma loo kala kororsan karaa. inkastoo taasi ay mar walba su-aal taagan tahay, haddana waxaa haddan lagu soo kiciyey oo na soo weydiiyey dhagaystayaasha barnaamijkan midkood oo magaciisa iyo halka uu dunida kaga nool yahay toona aan noo soo sheegin. yeelkeede jawaabta su-aashu waa haa, islamarkaana waa maya. waa haa oo guud ahaan jacayl aad ah haddii aad maansada u hayso. markii tix cusub laguu mariyo haddii aad wada qaban karto ama inteeda badan aad ku celin karto. kolkaad sheekaynayso haddaad is aragto adigoo tixa maanso ku maahmaahaya, haddii aad wax badan ka xafidsan tahay maansadii raggii hore, isla markaasna kuwa kula xilliga ah wax soo saarkooda aad wax roon ka og tahay, haddii aad iska dareento inaad leedahay awoodda kala soocidda tixda hagaagsan, midda meeldhexaadka ah iyo midda liidata, haddii meelisyada deelqaaf kale ama miisaan ahaan jaban isla markiiba ay dhegtaadu dareemi karto. intaas oo awoodood haddii aad isku aragto waxaad u dhowdahay inaad tirin karto maanso aan deelqaaf lahayn, maanso aan meelisyadeedu kala dheerayn, maanso habdhaca maansooyinka kale leeyihiin iyadana laga dareemi karo. inkastoo ay arrintu sidaa tahay oo dadka qaarkiis ay dadaal iyo barasho awgeed wuxuun maanso salsallaaba ay kolkolka qaarkood tirin karayaan, haddana marnaba
lama sinmi karayso maansada ay hibadu soo saarto. maansayahanka hibada oo letiiso waa isku xiran tahay oo ujeeddada ay xambaarsan tahay si buuxda ayuu ugu soo bandhigi karaa. ha yeeshee midda barashada lala kaashadaa way kala dalooshaa oo inkastoo la dheereeyo haddana qaybaheedu ujeeddadii loo mariyey ma koobaan. maansayahanka ay hibadu ku laran tahay meelisyo tira yar oo markiiba la qaybi karo ayuu ujeeddadiisa u xambaariyaa, waxaana tixihiisa lagala soo dhex bixi karaa tuducyo lagu halqabsado oo murti miiran ah. ha yeeshee qofka barashada awgeed wax ku curiya tix gaaban kuma dambogan karo, wixiisuna shiiqsi dambe ma yeeshaan. maansada barashada lagu dhaliyo waa lagu dhibtoodaayo inuu ebiyo maalmo badan ayay ninkeeda ku qaadataa, halka midka ku dhashay ay debnaha ka saarsaaran tahay oo markii la weydiiyo iyo goobtii lagu haybiyaba uu Ismaaciil Mire sidiisii dadka kaga haqabtiri karo. sidaa daraaddeed inkastoo farsamo ahaan aad wax badan ka ogaato barashada sida maansada la isugu duwo iyo xeerarkeeda, haddana adiga iyo maansayahanka hibada loo siiyey cirka iyo dhulku intay isu jiraan ayaad isu jirtaan marka la isbarbar dhigo midkiin waliba tixaha uu curiyo. sida Saahid Qamaankii uu tirinteeda eebba ku galladay, nin barasho ku galay lagama fili karo intuu garnaqsado inuu meelisyo tira yar ku muujiyo meesha sare ee qabkiisu joogo iyo ogaaska tolkaba allaha ka dhige inaanu nin nabadgeli u lahayn, wax sinaan ka hooseeyana aan laga damci karin. haddii madowga geeduhu engego mirayga jiilaalka ma'wiceel, haddii loo kaco maalku wada oomo mijil waa ka qaybsada tolkii mira wadaagaaye masaw aabbahay iyo halkaan magan ka soo gaaray magowsina inaan layga siin maax la dhuranayo oon malabra kale loo shushubi wax uga miileeyo aan meesha taagnahay anaan mududna leefaynin aan meeraxaan igu xirnayn maylima u haysto aan weliba mood iyo salaan ula maleegnaado saddex magac alle xaajada ah layma marinsiiyo sida koron xiniyaha la muday uma malugnaada. ma nin barasho keliyihii ay curinta maansada u geysay ayaa la garab dhigi karaa Faarax Nuurkii uurka hooyadii kala soo baxay ee isaga oo dadkiisa u digaaya meelisyada kooban ku qeexay hababka kala kaanka ee la isku khiyaamo, isna uu dareensanaa qayrada uu hogaamiyo in lala maagan yahay. Faarax Nuurkii yidhi qabbi hadalka lagu laam karay yaan qaar ka saamacay qalqalloo cadaya geedigaa idin qadaacaya qayrada xaggee lagu wadaa qadow ka meelaysa qaadhaawahoodii maxaa qoriga loo siistay maxaa qaalmahoodii rasaas loogu wada quura qosol beena fool wada qayaxan qiiraan garanayo booraan afkii laga qafilay qabarna hooseeyo qusur oodan shabag laysu qubay qoolad iyo xeelad qulaab iyo kulaab iyo lacaaf la isku qabanayo qiyaamada halkaas soo turqan in qunuga soo jeedo doqon baa halkii lagu qatali qoorta soo dhigan ee maanaha midiya lay qarshaa laygu qali doona sidee baan qamboosha u cunaa qabiska waabayda buul. allah u naxariistay aadan carab oo geeridiisii kadib aan jeer ku tilmaamay maansayahanadii hore kii u dambeeyey ayaa gabayadiisii midkood waxa uu inagu baray inay maansa curintu hibo tahaye aanay ahayn tilmaan qasab iyo isjecelaysiin lagu taabi karo. wuxuu markaa u faanayay niman si wada jira ugu soo gabi jiray isaga oo ugu baanaya curinta maansadu inay tahay hanti isaga si gaara loogu xudumay oo hibo iyo maqaadiir ugu timide aanu sidooda oo kale bawsi iyo barasho ku helin. waxaa meelisyadiisii ka mid ahaa inkastoo midhaha laga sinmiyo madasha luuqdeeda murti baan ka reebaa hadha iyo anigu maahmaahay miisaan haddaan hadal lahayn waa micno la'aane maskax baan lahaynine horaa lay midiidimaye ma maroorsibaa gabaygu waa ii mihiib galaye maa layga maashado haddaan layga maarmaynin mulki baan u yeeshaye maxaa lay martiyi waaye maskab kuma qabee jeer miyaan laygu magacaabin waa maxay dadka u muhanayaa meheradaan hayste amba kama mahoobiyin tolkay maansadaa badan ee Masar iyo Khalduunna uma tegin mana masaafoonne kamana mudanin sheekh ii marsha oo macrifo ay dheere waan muhindisaye iima dhigin macallin yeershaaye waa shay maqaadiir ku yimid aan yar maamula yeeshow duul basayr ugu dhintee madadkan laysiiyey.
dhegaystayaal barnaamijkeennii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa haynoo joogo waa ilo barnaamijka soo socda iyo toddobaadka soo aadan